dagaal ka dhex qarxay FA-ga iyo Arsenal. Arteta oo durba afka furtay. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa walaac xoogan ka muujiyay ciriiriga jadwalka ciyaaraha, gaar ahaan kulanka Carabao Cup ee Arsenal la leedahay Crystal Palace bisha December. Haddii jadwalku sidan ku sii socdo, Crystal Palace ayaa ku qasban inay ciyaaraan 3 kulan 5 maalmood gudahood. Arteta oo su'aalaha warbaahinta ka jawaabaya ayaa yiri, go'aan kasta oo la qaato waa inuu ku salaysnaada 2 arrimood: daryeelka ciyaartooyda iyo taageerayaasha. Inta kale waa inay ka dambaysaa arrintaas. Markii la weydiiyay haddii kooxuhu laga yaabo inay qasab noqoto inay tartamada qaarkood ka tanaasulaan haddii jadwalka la xakameyn waayo, Arteta wuxuu sheegay, waxaan rajeynayaa inaysan xaaladdu halkaas gaarin. Haddii aan mar walba xasuusnaado labadaas mabda', wanaagga ciyaartooyda iyo taageerayaasha, ma gaari doono heerkaas. Laakiin haddii aan iska indhatirno wax walba way dhici karaan. Arsenal ayaa ku jirta xilli ay ku dhowdahay inaysan helin fasax ilaa Boxing Day, taas oo micnaheedu yahay inay ciyaari doonaan 3 ilaa 4 maalmood kasta 2 bilood gudaheed. Taasi waxay kordhin kartaa daalka ciyaartooyda, dhaawacyada iyo hoos u dhaca tayada ciyaarta. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaasna waxay qayb ka tahay barnaamijkeena Bandhiga Ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.